waddanka wuxuu ku yaala koonfurta Asia xigeenna dhinaca bartamaha isla qaaraddaasi waddankan ma laha haba yaratay wax bada waddanka koob iyo afartanaad ee caalamka ugu ballaaran kaas oo leh area ah 650,000 oo kiiloomitir hoyna u ah ilaa in ka badan 30 milyan oo qof noqonayana waddanka labiyo afartanaad ee ugu dadka badan caalamka dakhli sanadeedka qofkii reer Afghanistan ayaa lagu qiyaasaa $1,000 sanadkii halka qofba shaqo la'aanta waddanka ka jirta ayaa lagu qiyaasaa ilaa in ka badan 35%. Number 9 Niger waxay dhacdaa galbeedka Afrika oo waddan aan lahayn haba yaratay wax bada wuxuu ku fadhiyaa dhul area-diisu ay dhan tahay 270,000 oo kiiloomitir oo waddanka labiyo labaatanaad ee ugu ballaaran caalamka hoyna u ah ilaa in ka badan 17,129,000 oo qof kaas oo dakhli sanadeedkii qofkii yahay $771. sidaa waxaa sii dheer 80% area-da uu ku fadhiyo waddankani inay ka mid tahay lama deegaanka Sahara. Number 8 Burundi waxay dhacdaa Afrikada bari waana waddan aan bad lahayn lehna area ah 720,834 kiiloomitir kana dhigta waddanka 145aad ee dunida ugu weyn ayna ku nool yihiin ilaa in ka badan 8,749,000 oo qof noqdana waddanka 89aad ee dunida ugu dadka badan. dakhli qofeedka sanadka ayaa lagu sheegaa $625 oo keliya. Number 7 Zimbabwe waxay dhacdaa Afrikada koonfureed waxaana leedahay area gaadhaysa 390,757 kiiloomitir ahna waddanka 60aad ee dunida ugu weyn dad ahaana iska leh 12,970,000 oo qof soona gala waddanka 72aad ee ugu dadka badan caalamka. dakhli qofeedka sanadka ayaa lagu sheegaa $589. Zimbabwe waa mid ka mid ah labada waddan ee ugu faqirsan caalamka iyadoo cimriga ragga uu gaadho lagu qiyaaso ilaa 37 sano halka haweenka lagu qiyaaso ilaa 34 sano noqonayana waddanka ugu cimriga yar caalamka. Number 6 Eritrea waddan aad u yar kuna yaala geeska Afrika darisna la ah badda cas kuna fadhiya dhul gaadhaya 117,600 oo kiiloomitir ahna waddanka 107aad ee dunida ugu weyn dhinaca seeska. Eritrea waxay hoy u tahay dad gaadhaya ilaa 6 milyan oo qof shaqaalaha badankooda ayaa ah qaar wax qoda soona saara dahabka kobarka iyo waxyaabaha la midka ah. dakhli qofeedka sanadkii ayaa ah $564 oo keliya. Madagascar waa jasiirad ku taalla koonfur bari Afrika oo ee badweynta Hindiya waana jasiiradda afraad ee ugu weyn caalamka waxay leedahay dad gaadhaya ilaa in ka badan 22 milyan oo qof waana dalka 47aad ee ugu weyn dunida kaas oo leh area ah 592,000 oo kiiloomitir. Madagascar waxay caan ku tahay ugaadh taas oo la sheego 90% xayawaankaas inaan laga helin meel kale oo dunida ah. dakhli sanadeedka qofka ayaa lagu sheegaa $500. Lambarka 4 Liberia waddanka afraad ee dunida ugu faqirsan waxay dhacdaa xeebta galbeed ee Afrika darisna waxay la tahay badweynta Atlantika waana waddanka 103aad ee dunida ugu weyn lehna population ka badan 3.5 milyan. dakhli qofeedka sanadka ayaa ah $460 oo keliya. waddanka 3 Central African Republic waxay dhacdaa bartamaha Afrika waana waddan aan lahayn haba yaratay wax bada oo leh area gaadhaysa 620,000 oo kiiloomitir waana waddanka 45aad ee dunida ugu weyn hoy u ah ilaa in ka badan 4,400,000 oo qof kana dhigta waddanka 124aad ee dunida ugu dad badan kaas oo leh dakhli qofeed sanadkii gaadhaya $300. Number 2 Malawi waddankan markii hore waxaa loo yaqaanay Nyasaland wuxuu dhacaa koonfur bari Afrika waddanka 9aad ee ugu weyn caalamka iyo kan 60aad ee ugu dadka badan dunida oo haysta ilaa in ka badan 16,500,000 oo qof. tirada dadka ayaa ah inta badan mid isbedbedesha iyadoo tirada dadka u dhintay AIDS ay tahay mid aad u badan iyo weliba xaaladda nololeed ee dalka oo aad u daciif ah. dakhli sanadeedka qofka ayaa lagu sheegaa $253 oo keliya. Number 1 Democratic Republic of Congo waddanka dunida ugu faqirsan wuxuu ku yaalaa bartamaha Afrika waana waddanka 11aad ee dunida ugu ballaaran waana waddanka 19aad ee haysta dadka tirada ugu badan caalamka. waddan qani ku ah kheyraad kala duwan oo aad u ballaaran oo Ilaahay si dabiici u siiyay ay ka mid tahay diamond-ka dahabka silfarka uranium-ka iron-ta tinka iyo kuwa kale oo aad u badan. dakhli sanadeedka qofka ayaa lagu sheegay inay gaadhayso ilaa $236 oo qura